madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahan u joogay dalka Jabaan qaybgalka shirweynaha toddobaad ee horumarinta Afrika ayaa maanta wada hadallada laba geesood ah kula yeeshay magaalada Tokyo ra'iisul wasaaraha Jabaan Mudane Shinzo Abe. wada hadallada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, shaqo abuurka dhalinyarada, maalgashiga beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga iyo tababarada ciidanka booliska iyo taageerada ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya. labada hogaamiye ay sidoo kale isdhaafsaday aragtidooda ku aadan kamiro dhalinta qorshayaashooda jirka Afrika iyo Jabaan ee lagu jangooyay muddada 3 sano ee soo socota iyo sidii maalgashadayaasha u dhashay dalka Jabaan ay ugu soo dhiiran lahaayeen ay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan guulaha muuqday ee shacabkii dowladda Soomaaliya xaqiijiyeen muddadii la soo dhaafay iyo doorka hogaamineed ay ka qaadan karaan kobaca dhaqaale iyo isku xirnaanshaha gobolka. waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo adiga iyo shacabka Jabaan soo dhaweynta diiran ee aad noo samayseen aniga wafdigayga muddadii aan halkan ku sugnayn. waxaan abaal wahayna Jabaan taageerada tooska iyo mid dadban ee ay la garab taagan tahay dowladda federaalk ee Soomaaliya shacabkeeda. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa xusay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay barnaamijka iskaashiga laba geesoodka ee Jabaan iyo Afrika, isagoo ugu mahadceliyay madaxweynaha iyo wafdigiisa kasoo qaybgalka madashaas iyo qorshayaashii wax ku oolka ay soo bandhigeen. ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa sidoo kale ku bogaadiyay dowladda federaalk ee Soomaaliya horumarka ay ka gaartay dowlad wanaagga, dib u habeynta dhaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida, wuxuuna ballan qaaday in Jabaan ay kaalin mug leh ka geysanayso dadaalada deyn cafinta iyo sidooda jirka ugu shaqeynayaan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ee maaliyadda ay Jabaan ka tahay xubin firfircoon.